abti raalliga ahaada khadkii baa iga xumaaday. isku soo noqod wanaagsan bal soo laabta khadkii baa iga go-ay ma garanaya wax ku dhacay bilaa qaadayga wiiviga iga yara baxay baan filayaa. wiivigii baa iga baxay ilma adeerayaal raalli ahaada hala soo laabto. sheekadii halkii baan kasii wadayaa maadaama oo dhexbarta sii maraysay waxba ma sugayo. waxay ii maraysay ninkii cabdi ahaa oo naasireed ku xidhan oo deegaanna la mid ah oo oromiya la dhaho oo opposite nuga ah oo 90kaba aan islaynayno oo soomaalida xasuuqayo ay gacanta ku hayaan maanta oo xeradoodii uu ugu jiro oo naasireed uu ku xidhan yahay. waxaan idiin sheegahayaa marka intii aan xog ogaal ka ahay baan idinka sheekaynayaa. madaxweynihii cusbaa ee deegaanka la doortay inuu oramkii ka soo horjeedo oo yidhi ma shaqeeyo ninkaas uuna diiday baan idin sheegayaa. marka waxaa weeye soomaaliyey inaan annagii opposite isku ahaano oon iscayno oo reer cusmaan xareed baa saa yidhi khadiijo faarax baa ceyday cabdi cusmaan baa kan yeelay cabdi iley baa nin dilay la dhaho waa laga fiicanya. maanta cabdi ileygi dadka dilayay wuxuu ku jiraa gacanta cadowga ayuu maanta ku jiraa. may maqlaysaan horta? wacalaykum assalaam aamiin waan ku salaamayaa saaxib macaane. haddii la maqlaya haa soo qora balyaan iska daroorimin meel cidla ah. hadduu ismaqal jiro haa ii soo qora waan ku maqlaynaa idinkoo raalliya. waan necdahay inaan dadka aan soo qabto because of fikirkaygaan raba inaan ka hadla oon inta aniga ugu jirtay fikirkayga aan ka darooriyamo oo wixii ani ila gudboon aan idiin soo jeediyey waxaan xog ogaalka ahay. waan idin soo qaban doonaa haddaa u baahantihiin dhib ma laha. dadkan aad buu yiriya khadkii baa iga kala go-ay hadaayto raalli iga ahaada. waan ku maqlaynaa buu yiri aamiin. okay aamiinow haddaad imaqlaysaan waa mahadsantihiin. dadkana wuu iska imaan doonaa dhib ma laha. waana iga gaadhsiiya dadka iga gaadhsiiya insha allah intii ay gaari kartay karaankiina hal ii sheer gareeyo dadkan hal ii gaadhsiiyo. waa maalintaydii koowaad in live soo galo mana jeclinaan soo galo live. xoolo nin weyna ma ahan laakiin inaad ra'yigaada kaga dhiibato waa muhiim. okay marka waxay maraysay cabdi halkaasuu ku xidhan yahay. shidaalkiina waxaa la yidhi 5% waa inaad ku qanciso deegaanka dadka degan ee soomaalida ah. 5% waa inaad ku qanciso axmed shida ninka la dhaho. waad i garateen baa malaynaya. waa midkan cusub ee la dooranaya gacanta farta loogu miidaarayo naah la dhahayo soo naahlaynaya. waan naahleeyey hidh waan hidhay adeer macaane. waxaas wax noo cuntamaya ma aha. haddaan shacabka deegaanka nahay, haddii aan soomaali galbeed nahay, haddii aan mubaadiniinta ku dhashay ee waalidkood joogeen ee awowyadood ku dhasheen ee weligaan yalahan aan joogin nahay adeer ama xilka sida horu ahaanaya ee soomaali baa ka talinaysa deegaanka ama waan dhimanaynaa. dhimashadu waa mar qura marun baa la dhintaa. ii sheer gareeya abti macaane. dadka ha ii soo bataano ii sheer gareeya intaa igu caawiya soomaaliya. waan ogahay inay soomaalida qaarkood is not all Somali people. dadka ugu Soomaali waxaan nahay dadka ugu sharafta badan adduunka. dadka adduunka ugu sharafta badan baan nahay haddaan Soomaali nahay. ma fahanteen? laakiin xoogaa qabiil aan ugu dhex jiro, xoogaa cuqdadaan ugu dhex jirto. reer cusmaan xereed ha dhamaadaan waxba igama gelin baan ugu jirto. adeer macaan waa meesha Soomaaliya burburisay Soomaali galbeed. waa meeshii dawladdeena ay ku burburtay. waa meeshii 100 intaasoo kun oo wiil oo Soomaali ah oo xiniyo cadda ah oo tababaran oo dawlad ku indhaqaaday wariyaa annaga dawlad la'aan baan aragnay dawlad miina arkinay ay ku dhamaatay way. ma fahanteen? meel ciyaar ma ah. dal iyo dad baa naga jiro. waa fahanteen? birrita haddii Soomaaliya dhisantana waxaa xaqiiqa oo maragma doonta ah inayna haysanaynin adeer gaaskaas iyo nimcadaas ee goboladaas Soomaali galbeed. waad fahanteen baan u malaynayaa ilma adeerayaalo waxba yaan in daalinin. nimanka fikirka Abiy Ahmed ninka la dhaho fikirkiisaan idin sheegaya iyo halka uu ka joogo Soomaali halka ay ka joogto maanta iyo sharaf xumada iyo bahdilka uu inagu hayo. asagoo oo wuxuu inagu bilaabay goormu bilowday orama goormay bilowday gumaadkan ma dhawo kiiba haysta bidaarta xumaa ood ogtiin. orama waag hore xoolay ahayd dad cawaanay ahaayeen dad fara badan oo jigjiga ka tuugsado oo boosaaso ka tuugsado oo berbere ka tuugsado oo meelaha badda taagtaagan oo lagu xamaasho oo jigjiga dadka cuntada u sameeya bay ahaan jireen oramada.
xaqiiqo wey ciddi idiidan oromada ninkii orom ah qudhigiisa og waad fahantaa filaya jaariyaday ahaan jireen ii soo sheegay dad waxay ahaan jireen dadka u soo adeego xaafadda u shaqeeyo dadkaas noocaas ahaan jireen hase ahaatee maanta dadkii oo layiri xil baad hesheen dad madaxaad noqoteen adeer macaane 80 qowmiyadood oo kala luuqad ah oo kala hadal ah oo kala ii soo sheegay diin ah oo ninna dhar xidhan ninna dhar xidhanin ma hayn karaan waad fahanteen baan malaynay ilmaadaraal run sabeen hasha yeeshadeedaas anigu waxba igama gelin Etoobiyada kaleento dhulkayga iyo dadkayga iyo shacabkayga adeer macaane iyo diintayda sharafta leh Soomaali baan ahay luuqadda Soomaaliga ku hadlaya cid iga sareysana ma aaminsan inay jirto waad fahanteen baan malaynay xoolaha ee aqliga lahayn baan u arkaa dadka oromada aniga ii soo sheegay caanaha laga maasho iyo oromada isku mid weey haddii aan israaco oo midoobo oo birri Soomaalidaas ii soo sheeg Soomaaliya iyo Muqdisho ay Soomaali ii noqoto oo dawlad ii noqoto lugeeda ku istaagto adeer macaan hal lug baan marnay Itoobiya weligeena waan marin jiray harar iyo hawaas Allah ayu la helo oo ku dhaantiin jiray waad fahanteen baan malaynaya ayadoo ay sidaa tahay haddana dad baa naga faa'iideysanayo ama reer galbeedka ha ahaadaano ama dadka madow ee geeska Afrika ha ahaadaano adeer macaane dad baa naga faa'iideysanayo na kala furfurayo halyeegeena godgelinayo keena dhaadhaanka ana xil siinay waad fahanteen baan malaynaya hase ahaateedaas hadda waxaan arkay dad badan oo Soomaali ah oo ii soo sheeg beejidkooda oramo ka soo gelinay oo dhahayo orama guuleysanayso oramaha guul oramaha dee guuleysatay maxaa faa'iido ku ah Soomaali baa taana Soomaali baan ahay in adeerka baan ahay nin Soomaali ku la hadlayaan oo kula dhiiga oo kula diina oo kula dal wariya jigjiga maanta meesha harta ninkii ima waa noqo Soomaali dabadeedka ima raas Kamboni iyo raas waxaan maqli jiray raas biciid miyay raas Kamboni ilaa iyo raas hebel baan maqli jiray halka ka ima adeer macaane Soomaali baa tahay Soomaalinimadaada ku huran Soomaalinimadaada ayaa ku huran waad fahantaan malaynaya ninkii hor fadhiyo iyo ninkii gaari doontaan la hadlay ninka Soomaaliga la hadlay anigu wixii Soomaali sheegto Soomaali sax ah adeer macaane midka oromada u daba dhaqama ah midka ii soo sheegay ku faraxsan ma aha Soomaaliga jibkiisa abdi ilay waa nin Soomaali ah hal la xidho midiidani oo dambi buu gal hadii la dhooxito hadii la xidho laakiin waxa bahdil ii ah oo sharaf darro ii ah raggi Soomaalida qowracayay ee godka gelin jiray ee ku aasayay ee ku dhaantay ku heesayay luuqadooda dhahayay hala aaso waxaan leenahay berberi iyo garow baashi meesha loo garow annaga iskala raggi dhahayay ee oromada hay cuqdada dishay ee Soomaaliland ay halka ay ka gaadhay adeer macaane nolosha ku gubiyay dadka 7 qof oo Djibouti ka soo iyasoo sheeg samar ka soo baxday adeer macaane oo xagaa bax baa yaa laga dhaxagaas ka soo xagaa baxday dadka nolosha ku gubay ayagoo nool gubay adeer waa daraad bay ahayd dadkii baa gacanta looga geliyay horta waa dadka ku faraxsan inuu abdi ilay dad gumaadi jiray oo tuug ahaa oo xasad ahaa ha ahaado waan ogahay asagoo ah Soomaali hadda maanta ii ciqaabayso waxba igama dhacin because walaalkay ii cunay laakiin nin cadow ah oo horumarkaada nacab oo inaad dadka daba fadhiisato rabo oo caalamka ugu sheekeynaya dadka Soomaalida la dhaw waa dad cawaan ah oo qabiilka ka dambeeyo ana u talinahayo igu beela ana hayo geeska Afrika Soomaali ana awoodeeda aqaano waa dad hadii awood ay yeelato ku dhamaynayso anagu awooda noogu yeelina dad ku qodbaynay way Itoobiyaanku adeer macaane runtaan ka hadlayaan ilaahay baa iskala nafta mar bay baxdaa Soomaali galbeed ha isxilqaanto ciidanku way haysataa waxa xaqiiqo ma ka ah hadii 3 bilood la sii joogo ciidanka new police in awoodooda la weeqayo oo adeer macaane shuwar ah cid ma soo wacay anigu laakiin fikirkayga ka hadlaya bis it's my first day ilma adeer reyaalo xanaaq baa iga soo galiyay live waad fahanteen ba filaya nimankaas new police-ka ah ee deegaanka u taliyo ee awooda yarta ah ee Soomaalinimada ah waxay fali jireen falan abdi ilay fikirkiisa ku shaqeyn jireen waxay aan jireen laakiin maanta waa rag Soomaali ah oo qori wato oo iisoo sheegay dhulkooda u dhimanayo xaqiiqa makiyan wata adeer rabtaan xaqiiqada adeer macaane wixii tagay naagna ma caayi kara waa hooyaday adeer macaane ruux cuqdada dishay baad yaa soo gocdo oo dhaho abdi baa sameeyay aan alif buu dili jiray niman buu xasuuqay islaam buu kufsaday kanuu yeelay adeer waxaas ay saram ma soconayso Ethiopian ku dham ay saram it's not going on adeer macaane ma fahanti xaqiiqada waxay tahay Soomaali baa tahay inaad ka midowdo oo mid noqoto always one Soomaali inta ku hadasho kii garab ugu kaalmeynayo
iyo kii af ugu kaalmaynayo iyo kii ciidan ugu kaalmaynayo ha ugu kaalmeeyo dadka degan Soomaali galbeed ee kala firriqsan ee 10ka group noqday baan la hadlayaa anigu war dhulkiina lagu socdaa war shidaalkiina lagu socdaa war shacabkiina lagu socdaa war ii soo sheeg adeer macaane goboladan waaweynka ah ee baadiyaha leh ee khayraadka leh ee dooxooyinka leh dhul dooxa leh oo xoolo daaqaan adeer macaane Soomaali mooyin meel kale laga helo xaqiiqa idin sheegaya dhul dooxa leh oo soo rogayo dooxadii baa soo rogtay la dhahayo oo khayraad leh oo geeda leh oo dhir leh oo banaan baadiye leh 1 kiiloomitir oo baadiye camal oo tuuli xitaa ku olin dhul leh Soomaali bas laga helaa ilma adeerayaalow waxaan hadda aniga idin ku soo jeedinayaa Soomaali baan la hadlayaa anigu Soomaali galbeed iyo Soomaali weyn dadka Soomaali weyn in hal baan kula talinayaa Soomaali galbeed in hal baan kula talinayaa Soomaali Maxamed koonfur deganow waqooyi deganow middle deganow Soomaaliya bari deganow galbeed deganow adeer macaan Soomaali baad Soomaalinimadaada ku hurran waad fahantaa amaleynaya siyaad bar wuxuu ka cabsanayay ka walaac qabay tan u beehed maanta taagan waad fahanteen baa amaleynaya ilma adeerayaal dawladdiina dhisneed ee Soomaaliya ahayd ee sharafta lahayd ee geeska Afrika iska day Afrika dhan adeer macaan awoodiisa ahayd ee saa looga baqanay ee meel kasta madaxweyne loogu soo dhaweynay waxa burburisay ee budaagtay ee ku ciyaartay ee sumcadiina dishay waa dhulka Soomaali galbeed in ka maqan ilaa iyo hadda uu idinka maqan yahay ayadoo sidaa tahay haddaad awoodayna maanta walaalka baad ku ogahay tabartaadana Soomaali baad tahay xumaa tahay ii muujinay adeer macaan ugu caawi waxaad ugu caawin karto oo ay garab istaago wariya iska celideh laakiin haddii aad dhahdo maanta dir weeyo oramo dir bay ahayd saan sheekada ku maqlay awowgi baa ii sheegay Khadiija Faarax baa tir oramo waa dir adeer macaan waxaas wax soconaya ma Soomaali waa Soomaali waad fahantaa malaynaya oromna waa orom laba qowmiyadood baan kala nahay oramo wakaas intay kala firqato ha kala dhada kana waa reer hebel kana waa reer hebel carha dhacdo wakaas koodi dadka godka loogu ridayay markuu tikreega joogay ee ururka ah adeer macaan intuu soo xarooday buulay gaaskan soo booqanaya waa ninkan la dhaho Jawar Maxamed la dhaho Jawar Maxamed ma aqaanano ee gafuur ku xun ka weeyaan ma garatay wuxuu ku qodbeynayaa inaan shidaalka Soomaali ee Itoobiya butaagaya Soomaali ma dhahayo shidaalka Itoobiya soo booqanaya khayraadka hadda la furayo xaaladana wada artay u xuntahay waxa ka socda deegaanka waad ogtihiin iyo say u xuntahay wuxuuna ku leeyahay waxaan soo booqanayaa shidaalka oo shidaalka mooyidii baa iskale xaquu ka keenay Soomaali baa iskale shidaalka adeer macaan Soomaali meel kasto ay degan tahayba Soomaali baa shidaalka iskale Soomaali galbeed dhulkeeda laga helay Soomaali galbeedna waa Soomaali adeer macaan wax la dhoodhoobana meesha ma yaalo oo ramaha la iska celiyo naftu marbay baxdaa aan halgano waayiga talaanu fikirkayaan ka hadlaya fikir waxaan ka hadlaynaa urur oo aan fildo waxaan ka hadlaynaa fikir deegaanka oo ii soo sheegay aan awoodin because of oo ma taliyo deegaanka shakhsi baan ka ahay waan ku dhashay intaaba kula soo ekaado ku soo barbaaray waxaan ka hadlaynin oo dulmidiid urur la dhaho adeer macaan fikirkayga oo saliim oo bishakhsiyan abaan soo jeedinaya shacabkayga Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qabiil baan aqaanin hebel baan aqaanin ninkii qabiil uu ururka ugu jiro ee isdahaya la soo gaabiyo waxaan meelaha ku ararkay unlimited baa waxa laga soo dhigaya ii soo sheegay limit because of farabateen waa la yareynaya adeer macaan awoodoodan waa la naaqusnaya ayagay u taala dadkaas waxaan u sheegayaa dadka deegaanka Soomaali galbeed degan iyo dadka qurba joogta ah iyo shacabka iyo ururadan faraha badan ee la sameystay anigu waxba ka garmay ee ii soo sheegay powerless-ka adeer macaan ee qabyaaladda iyo cuqdada iyo ka sheekanay dad inay si kala fogeeyaan dir dhaba shir baa ka socdo shirkaas ka socdo wax uu awood yar xitaa ma laho waad aragtay waxa ka socdo adeer macaan oramkan nin asaga gacantiis uu saa ugu yeedho nah ante u dhaho buu yusaaraya meesha waad fahantay ma malaynaya xaqiiqa ma ka weeyo ninkaasuu saarayaa deegaanka 5 shidaalka 5% buu ku qancinayaa waa wax xaqiiqa ah oo la og yahay way midaas dadka marka waxaan u sheegayaa jiifo ama dadka iskala fandiciranayo ee dhahayo anna dulmidiid baan anna on alif baan anna deegaankan ahayo heega lay dhaha adeer macaan waxaas wax soconay ma dhulka waa la wada leeyahay wuu naga badan yahay haddii aad ii soo sheegay magac diidan tahay ama qabiil aad diidan tahay war qabiil ma jiro wax la dhaho Soomaali baad anna Soomaali baan dhulkan wuu naga dhaxaya in adeero ma wada difaacana dhulka yes or not no haday adiga cadow ah wasaka celinaya ku dhigaada cadow because of kaman naxis dhulkay nimankan ii soo sheegay shirayo hadda direedaba ku shirayo cuqaal iyo odayaal iyo waxaan maqlay waxa shir wax shirayo oo ilaah abuurtay malaha urur weeyo
ururkiina sidii ay rabeen way u noqotay ayagu cabdi un bay rabeen inay isdhaafiyaan cabdi isdhaafiya muxuma cabdi waa ku dhaafay haddii aad cabdi ka xumeed ururow dulmidiidow haddii cabdi dhibsanaysay oo dhib kugu hayay cabdi wuu tegey shalay kii ay guddiga baarlamaanka iyo guddiga fulinta iyo iisoo sheeg shacabkii deegaanka iyo wax walba iyo oo la wada doortay adeer macaane ma shaqeeyo baa layidhi oramka hadalkiisaa shaqeeyo kaasaan shaqaynaynin walaa cabdi baan shaqaynaynin ninka ani aan meesha geysto bisaa shaqaynayu yidhi waa the last news from abiy axmed ninka lo waad fahanteen baa malaynaya ilma adeerayaalo soomaali galbeed dadka la dhaho firqadan iyo qadiijo faarax iyo cismaan xareed baa tahay iyo ree hebel baa tahay iyo waxan inta iska daysaan war dhulkiina ma difaacanaysaan oo ma midoobaysaan oo aan alaf ragala dhaho ilma adeerayaalo eletriyan ku shirayaa oo Ethiopian rajo kale yahaydan aad ka sheekaynaysaan anigu waxba kama fahmin eletriya hadaad ku shirto iyo haddii aad ku shirinbo Ethiopia nin rajo kale baan maanta ku arkaa oo jilcay 30 sanaad soo halgamaysay laakiin maanta nin jilcay baad waqti nin jilcay oo la kala furfuray oo siyaasadda Ethiopia fahmayo oo rabay inuu ku dhex darmado ku dhex baabaato gumaysigii aad sheegaysay baad maanta ku qanacsan tahay baan dhihi karaa waa on alif ragala dhaho oo aan alif ilma adeerayaal waan idin taageersana anugu laakiin dhaliishna waa idin sheegaya dhaliil baad leedihiin adeer macaane afayeenkina markuu hadlayo waa nin dastuurka Ethiopia rajo kale oo dhahayo dastuurka Ethiopia sidaa ma ahan dastuurka Ethiopia maxay galay naatan sabtimi I'm Somali man yo maxay galaan dastuurka Ethiopia waxaan ka sheekeynayso afayeen dhan baa tahay 30 sanaad soo halgamaysay meeqa wiil baa ka soo dhimatay wariyaa laba xiniyood ah oo halgama ah oo aan alif calankooda wato adeer macaane meeqa ku dhimatay goday qabri dahar dhagax buur jigjigo fiiq shineela liibaan iyo iisoo sheega jigjigo intuba meeqa ku dhimatay sagaalka gobol inta wiil ku dhimatay oo aan alif ah adeer macaane waa ma cadad adigoo afhayeen ah ama hogaamiye ah ama iisoo sheegay waxa rabto oo aan alif oo xil u hayo maanta inaad dhahdo shir baa nooga socdo eletriya casmaro shir nooga socda waan heshiinayna dastuurka Ethiopia sidaa ma ahan shacabka ha isdajiyaan war maxay isku dajinayaan shacabka saad rabtay bay ku yeelan adeer macaane maxaad ku halgamaysay 30 sano maxaad ku dagaalamaysay oo aan alifay 30 sanaad qori waday oo agteed ugu ka dilayay oo dhimanaysay oo aan cabdi ilay uga kahay oo idhahay ha u heelan shacabka adeer macaane calool xaaran bay leeyihiin way qirsan yihiin inay deegaankooda Ethiopia haysato waa shacab idin raacsan laakiin xukuumadii markay jirtay baa ka awood badneed oo celinaysa shacabkooda all in all wixii dhacay maanta cabdi ilay waa la xidhay waa nin Soomaaliyeed waa nin mubaadin ah oo dhulkiisa u dhashay Soomaali inbuu ku abtirsanaya maanta alla Soomaaliyay buu leeyahay waad fahanteen ma malanaya shacabka deegaanka ku nool adeer macaane ayaa wax walba ka muhiimsan waa shakhsi oramana ha xidhato ama naasiriid ha geysato ama guriga hooyada ha geysato ama xaafadda abiy ama ninka la dhaho jawar ha ku xidhaan cabdi waa shakhsi horta mar un bayna nafta baxda waana nin rag adeer macaan rag iyo rafaadna way wada dhasheen ama waa la dilayaa ama oo dhimanaya ama uu noolaanaya labada mid weey laakiin shacabka deegaanka ku nool adeer macaan tamaanta taagan tusaale u qaata Ethiopia calankeeda guba iska tuura hooyadeed Ethiopia iyo wixii taageero iyo calankaas xunka ee hasho ku sawiran tahay ee cabdi uu sameeyay dhilada dhasha hoos calanka oo aan alif qaata waliba waa khalad calan oo aan alif nal qaadata because idinka oo ilaalinayo quluubta shacabka idin la degan iyo dadka Soomaali galbeed isku dhaw ee idin la degan idinka oo qalbigooda ilaalinayo waxa ay raali ka yihiin dadka deegaanka degan inaad qaadataan bad ku qasbantiin that is compulsory wuxuu shacabka ku qanacsan yahay deegaanka degan inaad qaadataan waa ku qasbantiin dad ma arko wax ay daawanay malo laakiin aniga fikirkayga ka hadlaya qofka ii sheer garanaya sheer gareeyo qofka aan sheer garanaynin iyo sheer garaynin anigu qadiyadeeda iyo fikirkayga ila gudboon baan ka hadlaya Soomaali Maxamed waadi fahanteen ma filaya saddex qof afar qof u dhaafilay laakiin nothing is up to me waxba aniga ma gelin aniga fikirkayga saliim abaan dhiibanayaa weligay life ma gelin waa maantana danba isoo gelisay adeer macaane hala sheer gareeyo hal ii gaarsiyo on alif xuquuq dadka madaxda oo aan alifta madaxda ii soo sheegay dulmidiid ku wala dhaho madaxda ku wala dhaho deegaanka ku jooga shalay kii la dooranayay all hal ii gaarsiyo ilma adeerayaal Soomaali hal ii gaarsiyo Soomaali oo dhan hal ii gaarsiyo Soomaali maanta awood ay idinku heeliso ma haysato laakiin waa walaaladiin Soomaali meel kasta joogto maanta Soomaali galbeed waa tii Soomaaliya burburisay ee weeqday horaan u sheegay waa ku soo celiyay hadalka waxaan idin leeyahay ilma adeerayaalow dadkan ururadan on alif baan sheekadeeda wadi on alifay waad ka gaabisay meeshaadi aad iyo aad 12 jeer baad ka gaabisay
soddon sanaad xurriyad u dagaalamaysa oodleed waa la iguumaysanayaa maantana inaad qurbaha ka qaylqaylido ood social media soo istaagto laba wiil maxaa la yiri cabdi muxuu yiri maxaad maqasheen that's no advantage at all wax faa'iido ah oo idin leedahay inna yaraatay ma jirto maxaa fiican inaad adeer macaan deegaankiina soo gashaan cid idinku hortaagan ma laha aad xoraysataan shacabkii oo raalli idinka idin garab taagan aad garab istaagtaan dadka deegaanka idin la degan waa khalad waana arrin lagu xumaado inay cuqdad idin qaadaan oo ogaadeen landi ogaadeen community ogaadeen aad la soo taagnataan war adeer macaan ogaadeen waa qabiil waa gartood ragga cuqdad inay gasho way ku qasban yihiin ogaadeen wax la dhaho ma jiro ogaadeen waa qabiil Soomaali galbeed inaad dhahdaan oo Soomaali galbeedina ku adkaysataan aad ku halgantaan waa sax inaad Soomaalida deegaanka Soomaalida bis aw dhaafnalka deegaanka Soomaalida waa sax taas laakiin deegaanka Soomaalida ogaadeen landi ama iisoo sheeg ONLF ururka la dhaho soddon sano dagaalamay ma dhihi karo maanta magaciina bedela magaciina iska wata urur baatin dhib malaha laakiin waxa lagu dagaalgalayo eed ku dagaalamaysan idinkoo wada jiro waa Soomaali galbeed adeer macaan taasa inaga dhaxayso taasa sax ah rag hadii ay raggan kaleento ama dulmadiid la dhaho ama deegaanka shacabka ku nool ee ogaadeen aan ahayn hadii ay iscalool xumeynayaan lama yaabin maanta because of adeer macaan waa rag la dhashay waa rag Soomaali ah waa rag dhiigeeyo kala leh adeer waa iscuqtadeen karaan markaan ogaadeen la soo taagnaa 90 kaba oo kii UK ka hadlan uu ogaadeen dhaho kii jigjiga ka hadlan uu ogaadeen dhaho never go ma soconayso way faanteen ba filaya ilma adeerayaalow dadkaas deegaanka wada degan shacabka ah ee jecelahay aan ka dhashay waa inay isxilqaamaan waa inay dalkooda lagu soo duulay ay difaacaan oramadaas waa inay iska celiyaan ayagoo mid ah oonan ogaadeen ahayn Usmaan Xareedna ahayn Jidwaaqna ahayn iisoo sheeg garana ahayn garra way degaan meesha adeer Soomaali waa ku dhanta garra dego hawiya dego dirbaa degto waxaa dego iisoo sheegay garra xitaa waa dariska daayo ogaadeen baa dego Jidwaaq baa dego dadka meesha dego waa cadad lama soo koobi karo cadadkooda waxaan idin kula talinayaa aniga oo iisoo sheegay fikirkayga iyo qadiyadeeda igala gudban ka hadlaya deegaankaas maanta iyo xaaladda uu wajahay ee cusub maanta ayuu idin dhow yahay xorriyad maanta aad ugu dhowdihiin xorriyadiina aad u soo dagaalamaysan intaas dadka deegaankaas mubaadiniinta ku dhashay maanta idin ku dhowdahay adeer macaan naftu mar bay baxdaa laba ma baxdo saddex ma baxdo afar ma baxdo naftu hal mar bay baxdaa cabdina waa shakhsi oromiya haysto caawa oromiya hadisho ama hadiso laakiin waxaan idin leeyahay dalkiina difaacda oo ninkana nii keenaya hal farsaal loogu soo yeedhayo fakiyu ku dhax dila laftirkiisa niyo booliska dilaan ninka haduu imaado haduu ninka jigjiga ka soo dago hal dilo adeer macaan Soomaaliha israacdo hal iska celiyo oramkan adeer macaan kuwii horeeba dhaamo siyaasadda ban lagu maamuli jiray oramka siyaasadiisu waa caddahay sidii Soomaali uu ku baabi'in lahaa ayuu fikirkeedu ku jira wuuna iska cadiyay niyo booliska waan wiiqayaa buu laba bilood gudahood waa in niyo boolis lagu wiiqaa oo niyo boolis la waaya niyo boolis waa rag deegaanka difaacayo waa rag halgamayaasha ah waa rag iisoo sheeg wixii fikir ah ee qaldan ee dadka qaar ka aaminsan yihiin nothing is up to me laakiin waa rag deegaanka u dhashay maamulkii hore wixii uu sameeyay iyo wixii dib uu sameeyay waan ogahay ayadoo uu jiro haddana waxaan ku ilaabayaa oon dhibkaas ku ilaabayaa cadowga dhalay ee tuuga ah ee oramka ah isku day anoo Soomaali ah inuu dara igeliyo oo ay baqtiyo soconna mays adeer macaan Soomaali baan ahay sanku neeflamo gelin uga sarreey adeer macaan ma fahanti anoo Soomaalinimo ku faantamayo oo ku dhimanayo kuna noolaanayo baan deegaankayga xoraysanaya waad garateen ma maleynaya haddii aan birito annagii dhaxdeena Soomaali galbeed dhaxdeeda iska daa dad kale ay qaybna dhahdo iyo soo sheeg dulmidiid baana qaybna dhahdo oo aan lafana waligeed way ahayd ay dhahdo waan ahay oo ayna gaar u istaagto dad Eritrean shir kulanayo Ethiopia la heshiinaya qaybna dulmidiid baan noo dir dhamaan shir kulanay dhahan qaybna jigjiga ay fadhiyaan oo odayaasha intii la soo bixiyo la dhaho shacabka isdejiyaha lagu dhaho adeer macaan ayaana maamulayo goormaas xorriyad helina goormaas dad nool oo meel degan oo la yaqaan noqonina waa never had ma dhacayso waad garateen ma malinaya waxaan idin kula talinayaa shacab weynaha Soomaaliyeed Soomaali galbeed dadka Soomaaliyeed degan gidigiin adeer laga midoobo sida ay u midoowday Oromiya iyo Soomaaliya waa dad same ah as a same people ayagana waa qowmiyad ana qowmiyad baan Oromo waa qowmiyad dadka la dhaho anigana qowmiyad baan oo Soomaali baa la dhahaa
haddii aan saxda ka hadlo weeyaan oromana waa oromo soomaalina waa soomaali boosaaso haddii lagu dilay la yaabi maayo adeer macaan anna soomaali baan asagana waa orom idiin may hadda nasriid maanta ka dego kurku iga goynaya waad fahamtay ma malanaya maalinteedii koowaad weeyo lifekeygana fikirkeyga inaan ka hadlo iyo iisoo sheegay qadiyadda maanta ay hayso ayaan usoo galay si kale uma soo gelin waa mahadsantihiin waxaad sameynaysaan ii sheer gareeya dadku way igu yaryihiin laakiin way iisoo badaneen insha allah lifekeyga waa maalinteedii koowaad dhib malo lama yaabin in la idaaban waayo laakiin waa inaan fikirkeyga ka hadlo iyo qadiyadeyda iyo dadka qaar siday aaminsan yihiin nin walba inuu qabiil ka taliyo oo dhaho maanta ree hebel baan ahay waxba igama gelin jigjigaan leeyahay heble anaa iskale adeer waxaas wax soconay maaha si together ah wada jir ah dhulkeena aan wax horeysano waa fikirkeyga oo saliima wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iga gaadhsiiya soomaali weyn